xilli Soomaaliya ay weli diyaar garow ugu jirto qabsoomidda doorashada 2021 laakiin tartamayaasha ama jilayaasha waqtigan ay ku kala aragti duwan yihiin sida ay wax ku socdaan haddana dibudhicii ugu horeeyay oo bishan December la bilowday ayay shalay ahayd maalintii koobaad ee la dooran lahaa aqalka sare mana ka hirgelin gabi ahaanba meel kasta oo ka mid ah gobolada dalka tani durba waxaa loo arkayaa inuu jiro dibudhac weyn oo siyaasadeed kaasoo soo gaaray heshiiskii ay horey u gaareen dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda federaalka inkastoo heshiiska ay gaareen dhinacyada dowladda federaalka dowlad goboleedyada mucaaradkuna soo dhaweeyeen haddana heshiisku ma noqon mid hirgala waqtigan mucaaradka ayaana ka soo celiyay dood iyo xujooyin la xiriira magacaabidda guddiga doorashooyinka oo ay dureen garsoornimadooda dhexdhexaadnimo mucaaradka ayaa toddobaadkii hore dalbaday in la kala diro guddiga oo ay door ku yeeshaan magacaabidda xubnaha cusub ee la keenayo iyo cidda qabanaysa doorashooyinka xubnaha beelaha baraadiriga iyo gobollada waqooyi ee Somaliland ayna noqdaan kuwo la isla ogol yahay iyo qodobo kale laakiin fiila Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada midkoodna uma muuqdo inay ka jawaabayaan baaqa iyo qayladhaanta ka imaanaysa mucaaradka xildoonka fiila Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada waxa la rumaysan yahay inay qaar ka mid ah saaxiibadooda gaarka iyo shaqaalaha rayidka ku dareen guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kan xalinta khilaafaadka waxaana si isku mid ah Puntland iyo dowladda federaalku ay guddiga ugu darsadeen xubno aad ugu dhow madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Siciid Deni dadaal gaabis ku socdo oo garwadeen ka yahay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo doonayo inuu noqdo nin leh miisaan weyn oo siyaasadeed kuna wajahan isu keenida labada dhinac ee mucaaradka iyo madaxweynaha dowladda federaalka ayaa socda inkastoo aan weli natiijo rasmi ah laga haynin xogaha iyo macluumaadka la helayo waxay cadeynayaan inay mucaaradku doonayaan in waqtiga ay ridaan isla markaana la gaaro 8 Febraayo 2021 ayadoo aan la qaban hanaanka doorashooyinka dooda iyo macluumaadkan waxa xoojinaya doonista xubnaha qaarkood oo si cad u qirtay inay talaabadan doonayaan inay dhacdo sidaasna madaxweyne Farmaajo uusan u yeelan doonin ixtiraam madaxweynenimo haddii la gaaro muddada xilhayntiisu ay dhamaato laakiin xubno kale oo musharaxiinta madaxweynenimada qaarkood ay ka go'an tahay waxay bilaabeen inay tartanka galaan iyagoo qaba in la dedejiyo isfaham in la gaaro ka hor muddo xuleedka hay'adaha dowladda taasna ay dhabaha u xaari karto doorashooyin laga qabto gobolada oo laga soo doorto senatarada iyo xubnaha aqalka hoose ee si wada jira u dooran doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya marka uu dhamaado muddo xuleedka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa aad loogu hanqaltaagayo saaka adiga suugaysaan inaan ka hadlo doorasho la isku haystaa waxaad maqlayseen Jubbaland oo leeyahay doorashadu Jubbaland waxay cadeysay inaysan guddi doorasho magacaabi doonin ilaa gobolka Gada laga saaro waxa ay ugu yeertay maleeshiyaad lagu aruuriyay waxa ka sii horeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo Axmed Madoobaha muddada laylinaya Jubbaland ku eedeysay inuu u shaqeynayo Kenya oo uu fulinayo danaha Uhuru Kenyatta Puntland waxay u muuqataa inay sameynayso isdabaalin siyaasadeed oo aadna uga dhowrsanayso inay hadda mowqifkeeda cadeyso maadaama ay qoray qayb uga ahayd doorashada waqtigeeda in lagu qabto laguna heshiiyo hadda waxay xoogga saaraysaa inay natiijo kasta ku xalliso si hoose waxayna Puntland doonaysaa oo ay ciyaaraysaa ciyaar siyaasadeed oo ah mid hoose oo labada dhinacba ay doonayso inay ugu dambeynta ay gar iyo wadaay siyaasadeed ugu sheegato fiila Soomaaliya ayaa u aragta dhagar siyaasadeed oo ay dhadhaminaysa tabaha mucaaradka waxayna xoogga saaraysaa hadda inay qabsoonto doorashooyinka ayadoo doonaysa inay ku qabato Galmudug Hirshabeelle gobolka Banaadir iyo Koonfur Galbeed sida ay cadeynayaan xogaha iyo macluumaadka laga helayo sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka dadban ee lagu muransan yahay waxay cadeeyeen inay qaban doonaan doorasho ay ku dhaqmi doonaan jadwalka cusub ee ay samaysteen jadwalkaasi wuxuu mudaynayaa in xubnaha aqalka sare la doorto ka hor 15 bishan December 4 goobood
ee ay doonayso fiila Soomaaliya in lagu qabto doorashada waxaa ka soo gali doona in ka badan 219 xildhibaan taasoo ka dhigan in laba meelood wadarta guud ee baarlamaanka federaalka ee labadiisa gole ee ka qayb galaya doorashada madaxweynenimada laga heli karo goboladan. Tallaabadan dambe haddii ay dhacdo waxa ay muujinaysaa cabsi weyn oo laga qabi karo sida ay wax kasta ku hirgalaan. Mucaaradku waxay u arkaan jaanis siyaasadeysan oo ay dhinac ugu dhigi karaan dhiilo colaadeed ayagoo eedda dhandusha ka saaraya fiila Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo. Dadaalada caalamiga ee hadda socda ayaa kuwa ku khasbaya dhinacyada inay aqbalaan dhexdhexaadin ka timaada xagga ergada caalamiga. beesha caalamku waxay bixisaa dhaqaalaha ugu badan ee dowladda federaalka iyo kuwa ciidanka midowga Afrika ee gaaraya 23,000 kuwaasoo ujeedkoodu yahay ilaalinta xarumaha dowladda. ergada caalamigu waxay durba bilaabeen inay la kulmaan dhinacyada oo ay kala hadlaan sida ay u doonayaan hanaanka doorashooyinka waxaana la saadaalinayaa erganimada Axmed Cabdi Kaariyaha Galmudug iyo James Wanka qaramada midoobay kee lagu kalsoonaan doona oo heli doona libinta siyaasadeed iyadoo la rumaysan yahay in ugu dambeyn dhinacyada Soomaalida la isku keeni doono haddii aysan iyagu la imaan tanaasul iyo fikrad hogaamineed oo bad qabta.